waxaan rabaa inaan erey kale ka dhaho dowladda federaalka iyo federaalismka iyo amuuraha jira. waayo Puntland sidii caawa dad badan oo idinka hay uga hadleen de Puntland cirka kuma taalo, Soomaaliyana gaar kama aha. waxay ka xumaadaan meel kale ay saameynaysaa. haddii Puntland xumaato galmudug bay saamaan, haddii galmudug xumaato waxay saameynaysaa Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed, haddii dowladda dhex xumaato Soomaaliya inteeda kale saameynaysaa. marka waxaan rabaa inaan erey ka dhaho arrinta marka geedi socodka Soomaaliya oo hadda 18 sano jirsatay iyada ruuxeedu waxay ku timi safar dheer. waxay ku timi 18 sano oo hadba dhagax la rogayay carta laga soo bilaabay iyo Cabdiqaasim oo ahay 10 sano ka bacdi markii la burburay ee la kala tagay in walba deegaankiisa aaday markii ugu horeysay in carta la isugu yimaado oo wuxuun magac Soomaaliyeed oo Soomaalina halka lagu heshiyo haba dhutiso haba gaabiso, laakiin waxay ahayd bilowgii ugu horeeyay. waa waxa la xusayo taariikhda gashay way. waxa ku xigay 2004 iyo Mbagati iyo in la soo dhiso dastuur ku meel gaar oo charter ah, in la qaato nidaam federaal ah, in la togo filla Soomaaliya markii ugu horeysay 10 sano ka bacdi calan laga taago oo dowladda Soomaaliya halka ay ka howlgasho. waxay ahayd tallaabo kale oo taariikhi oo la soo qabtay. waxa ku xigay 2009 ee dowladda Sheekh Shariif oo soo qabatay markii ugu horeysay inay dadka Soomaaliyeed wada hadlaan oo kalsoonida dhistaan oo Garowe 1 iyo Garowe 2 iyo meel walba isku yimaado oo ku meel gaarka laga baxo oo markii ugu horeysay xamar la isku doorto oo dowladda Soomaaliyeed xamar lagu doortay ku soo baxdo. waa horumar weyn oo la taabtay weyn. waxa ku xigay dowladda Xasan Sheekh oo iyaduna samaysay inay salka u dhigto qalfoofkii nidaamka federaalka. intaasi waxay ahayd 18 sano oo ninba baal rogayay, oo ninba wax biirinayay, oo ninka kale meeshii ugu imanayay. wayna sii soconaysaa iyo ma dhawa. dowladda hadda timi waxa u taalay hawl adag. kow inay dalka nabadayso oo gacan ammaan soo wada geliso, inay dadka Soomaaliyeed heshiisiiso oo dib heshiisiinta xoog saarto, inay nidaamkii qalfoofka ahaa ee la dhisay ee federalismka xoojiso oo maamuladu salka dhigtaan, in nidaamkii federalismka iyo dastuurka iyo khayraadka laga gorgortamo, laakiin cidii ka gorgortamo lahayd marka hore ay dhisato. hawsha ay ahayd hawshii loo dhiibay, hawsha ay ahayd hawshii laga sugay. 4 sano ayaa la doortay, 2 sano ayaa hadhay. walwalka la qabaa waxa weeye horta nidaamka federaalka oo Soomaalidu qaadatay de duruuf baa keentay. sida intiinaan oo qaxootiya oo reer London ah ay duruuftu idin keentay meeshaan ayaa federalismka duruuf u keentay. wixii aynu haysanay ayaa burburay. hadday fiicnaayeen ma burbureen, sababta keentay ayaa jirta. waa kala tagno waa kala haadnay. su'aashu waxay noqotay see isugu nimaanaa, sidee wax u kala yeelanaa oo gacanta uga ilaalinaa inay taladu hal gacan oo aan ammaan ahayn aysan u gelin. sidee u ilaalinaa inaan wixii guud iyo qarannimadeennii iyo Soomaalinimadeennii ilaashano. geedigaas ay ahayd. xataa Soomaalidu kuma wada qanacsan, qaarkeen baabayna ka maqanba. Somaliland xataa wali wayna ka maqanta. marka waxay ahayd xaal duruufta keentay oo ah sidee la isugu yimaadaa. haddii ay jirto cid haysa inaynu Soomaali ahaano, midowno, wada jiro, baraaro, haddana inaan federaal noqon, waa arrin u furan mufakiriinta iyo saynisyahanka. halla keeno. laakiin tani waa tii Soomaalidu ka badin weyday. markii ugu horeysay waxaa muuqda dowladdii Soomaaliyeed oo arrinta loo doortay dhaliilaa muuqda. manaahi anigu nin dowladda federaalka ka soo shaqeeyay oo laga eriyay oo dhalisheeda sheegaya. waxaan ahay nin sheegaya wixii uu qabay markuu halkoo joogay. waxaa muuqda marka ugu horeysa isku milan awoodeed. isku milanka awooduna waa dheeliga ugu xun.
waxaa muuqdaa in golihii wasiirada iyo golihii xildhibaanadu ay isu ekaadeen, wasiiradii xildhibaana noqdeen, guddoonkii baarlamaanka la saaray, maxkamaddii la fareeyey. haddeer aynu hadlayno 5 maamul goboleed iyo dowladdii dhexe ma wada hadlayaan. waxaa markii ugu horeysay su'aali ka taagan tahay nidaamkii federaalka ahaa ee awalba nuglaa ee Soomaali la iskula doonayay. waxaan ognahay waxa galmudug ka socda oo waqti dheer la geliyay oo xaalad adag ku jirta. maanta 2 maamul iyo 2 xarumood ayaa ka jira. waxaan ognahay waxa ka socda koonfur galbeed. waxaan ognahay Garowe iyo Jubbaland iyo walwalka la qabo. taasi ma ahayn ujeedadii iyo shaqadii laga sugayay dawladda. dawladda Soomaalidu waxay tiraahdaa horta dawladdu naanays bay la baxday. iyada ay soo bixisay. inana waa ugu yeeraynaa. dawladda waxay la baxday naanaysta ah waa markii ugu horeysay. waa markii ugu horeysay oo la aqoonsado. waa markii ugu horeysay oo roob da'o. waa markii ugu horeysay oo meel cagaara la soo arko. waa markii ugu horeysay, waa markii ugu horeysay. ereyga waa markii ugu horeysay ruuxiisa ayaa noqday ereyga ugu sicir bararka badan marka laga siyaasadda Soomaalida. isaga ruuxiisa ayaa maanta dacwo ah oo la warhay buunbuuninina. marka waxaas la yaab leh, waxaas runtii markii ugu horeysay taariikhda. waxaa markii ugu horeysay in nin Soomaali ah oo madax ah oo filla Soomaaliya jooga oo calanka Soomaalida hoos fadhiya inuu nin kale oo Soomaali ah oo walaalkiisa u gacan geliyo cid kale. qadiyadda qalbi dhagax iyo boogteeda ayaa taariikh cusub. taas ayaa markii ugu horeysay. waxaa markii ugu horeysay in sharciga jinsiyadda Soomaalida, in Soomaalinimada, in dadka Soomaalida Soomaalinimadoodu markii ugu horeysay ay su'aal gasho. yaa Soomaali iyo yaan Soomaali ahayn. waxaa jira sharci la yiraahdo sharciga jinsiyadaha oo saaran miiska dawladda. wasiirka arrimaha gudaha ayaa keeni kara. aniga ayaa hor istaagay. sharcigaas waxa afti loo qaaday 62. wuxuu sheegayaa qof kasta oo asalkiisu Soomaali yahay inuu Soomaali yahay. Soomaalinimadu siyaasadda waa ka weynta. waa waxa aynu nahay. waa waxa aynu wadaagno. waa waxa isu keenhaya ama Djibouti joog ama Jigjiga joog ama Gaarisa joog ama Muqdisho joog. inta ay jirto dawlad magac Soomaaliyeed leh, calan Soomaaliyeed haysata, ninka Soomaaliga ee hoos jooga wuxuu yeelanayaa xuquuqda Soomaaliga. laakiin arrintaasi miiskay saaran tahay. waana markii ugu horeysay taariikhda oo dawlad Soomaaliyeed ay su'aal geliso Soomaalinimada. taasina waa ugu. taas ayaa markii ugu horeysay. waxa kale oo markii ugu horeysay in nidaamkii nuglaa ee federalismka aynu dooranay aynu wax ku dhoobdhoobaynay markii ugu horeysay walwal ina ka galo oo cabsi aan qabno. marka aniga sidii waxa weeye dalkan Soomaaliya oo nugul oo kala haaday oo la isla doonayo wuxuu ku iman karaa wada jir, isu tanaasul, isqancin, wada tashi. kuma socon karo tala hadlin caada. kuma socon karo isu fiirsi, iscanaad, dulqaad la'aan. arrintaasi waa dhaliil wadareed. ma aha cidda aan dhaliilaya oo kaliya dawladda dhexe. dawlad goboleedyada ruuxooda dhalishooda leh. dawlad goboleedyada ayaa laga rabay inay maamulka daadejaan.
marar badan waxaa dhacdaa in ninka madaxweynaha ka ah dowlad goboleedku uu markuu doonana dowladda dhexe la heshiiyo markuu doonana la dagaalamo waxa isku hayaana dadku ay fahmi waayaanba mar waxaa kaloo muhiim ah in dowlad goboleedku ruuxiisu awoodda dejiyo inuu amniga sugo adeeg fidiyo dadkiisa tala wadaag la yahay gaabisku meel walba waa jiraa laakiin waxa weeye haddaan la kala roonaan roomado soomaaliyana in hadba cidi ay talada dhufsato oo xariga giijiso oo hadday doonto goyso meel fog ayay tegaysaa arrintaasina waa walwal waxaan ugu baaqayaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay mas'uuliyad wadareed qaataan inay dadka u naxaan qolana talada kaligeed ma leh siyaasigu waa imanayaa waa tegayaa soomaalinimadu waa joogaysaa duruuftuna waa taagnaanaysaa ninku markuu joogo uu tago waxaa la weydiinayaa xilligaagii maxaa soo kordhisay haddii hebel baan qoobka uga istaagay ma noqonayso wax lagu faana hadhow arrintaasi marka iyana waa hawl adag weeye anigu haddii aan ku guulaysto xilka aan raadinayo soomaalinimadu waa igu weynta wax weyn bay ugu fadhidaa siyaasadna waa ka weyntahay soomaalinimu haddaan xil hayo iyo haddii kaleba waa raadin lahaa haddii aysan igu weynayn anoo xil haysta oo kursiga ku fadhiya ma qaateen go'aamada qaarkood anigu marka waxaan raadinayaa soomaaliya mid ah xor ah federaal ah midaysan wada jirta istixgelisa dariskeeda iyaduba wanaag wada nool waxaan qabaa in la heli karo laakiin waxaan qabaa oo kale dadka soomaalida ahi inay mas'uuliyad wadareed qaataan inay siyaasigooda la xisaabtamaan inaysan noqon oo kaliya afka wax laga sheegay in siyaasiga marada laga rogo maxaa go'a kaaga hooseeya run ahaan maxaad rumaysan tahay xagee saaxiiboo noo wada inaan lala kala safan siyaasiyiinta maalinlaha ah ee dadku ay xisaabtamaan arrintaasi waa mas'uuliyad wadareed waa mid saaran saxafiga iyo shacabka iyo bulshada dhammaanteen waayo dantain waa isku tolan wey intaa ka bacdi aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan kaloo u mahadnaqayaa dadkii iga soo dhaweeyay waqooyiga America intaan marayay idinkana waa idin mahadinayaa soo dhaweyn wanaagsan aad iyo aad baa u mahadsantihiin